السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديات بدو سلامتين دمان داوديال سيدا أنوغنا هاي وأيضا dadka madoow ee ku dhaqan dunida ama Afrikaanka asalkoodu yahay waa ay gadoodsan yihiin kadib markii dalka Mareykanka lagu dilay muwaadin George Floyd dilka George waxay kicisay muujado aad iyo aad u xoog badan oo ah caro taas oo Afrikaanku ay ku cabirayaan sida aysan u qaadan karin sinaan la'aanta cadaalad darrada dilka takrifalka awoodda iyo sida ay ugu nool yihiin meelaha ugu hooseeya dabaqa ahaan arrintaas ma aha arrin hadda soo bilaabatay waa arrin muddo badan jirtay kana mid ah asalka dhaqanka iyo hidaha iyo thaqaafada iyo ilbaxnimada reer galbeedka haddaba waxaan meeshan maanta ka soo jeedin doonaa sidee bay reer galbeedku u arkaan dadka madowga ah dhibaatada loo geysanayo madowga ay u geysanayaan dadka cadaanku ma wax shakhsi ah oo qofkii geystay kaliya uu aaminsan yahay mise waa aragti wadareed ay qabaan dhammaan dadka cadaanka ah meesha dooniha ku noolaadaan gaar ahaan kuwa ku nool Yurub marka iyo Mareykan si aan arrinta u ogaano waxaan u baahannahay inaan wax yar dib u laabano oo maskaxdeena dib celino oo aan tagno xilliyadii ay reer galbeedku gumaysanayeen qaaradda Afrika ama ay rabeen inay gumaystaan qaaradda Afrika Yurub markii ay gashay xilligii warshadaha waxa isbedelay qaabkii nolosha qaabkii fikirka qaabkii aragtida iyo sidoo kale baahiyaha waxa in badan oo adduunka kamid ah reer Yurub wadamadooda waaweyn ee warshadihii ay soo caan bixiyeen sida Ingiriiska Jarmalka Faransiiska Talyaaniga iyo Holland oo ugu horeeyay Spain iyo Portuguese oo ganacsigoodu wax badan oo kamid ah oo ku xidhnaa gadida iyo soo dhoofinta iyo kabaaci mushtarka dadka madoow ee Afrika laga qaado Afrika inta laga qaado la geeyo Latin ama la geeyo Yurub ama la geeyo Mareykan kuwaas oo suuqyada lagu kala gato kadibna beeraha iyo warshadaha lagaga shaqeeyo markii la galay xilligii warshadaha Yurub waxa ay isweydiisay inay u baahan yihiin qaab nololeed ka duwan qaabka hore u noolaan jireen waxay u baahdeen inay helaan si ay warshadahoodu ay u sii socdaan waa inay helaan maadada cayriinka ay warshadu ku shaqeyso waa inay helaan suuq waa inay helaan shaqaale raqiis ah oo aan u baahnayn kharash badan waayo shaqaalaha reer Yurub la nool waxay qaadanayaan kharash ka badan midka uu qaato Afrikaanka doomaha laga soo qaaday ee la soo adoonsaday qaaradda Afrika haddaba si ay arrintaas u hirgasho waxaa la diray dadyo badan baa la diray haddaba dadyowgii loo xil saaray in ay daraaseeyaan qaaradaha dunida ay ka warkeenaan shucuubta caalamka waxaan u kala qaadaynaa laba aan u kala qaadaynaa kuwa koobaad waa niman aqoonyahana fadhiya xarumo cilmi baaris jaamacado macaahid oo salka u dhigayay bal inay soo daraaseeyaan habdhaqanka iyo aragtida iyo diinta iyo caadooyinka iyo waxa ay aaminsan yihiin shucuubta la gumaysanayo gaar ahaan Afrikaanka isla xilligaas iyagana waxa ka garab shaqeynayay oo xogta ay keenaan xog ka badan keenayay niman dhulmareen ah oo badmaaxayaal ah oo loo soo diray Afrika nimankaas oo loogu talagalay inay soo daraaseeyaan Afrika dabeecad ahaan iyo dhul ahaan iyo dad ahaan labadaba haddii nimankii hore aqoonyahanka ay fadhiyeen kuraas gadaashooda ay xafiisyo fadhiyeen nimankan dhulmareenka ah waxa loo diray inay Afrika tagaan ay soo daraaseeyaan dhulka xageeba buura xageeba bada xageeba biyaha xageeba saxara ah xageeba dhul keemala ah iyo bal aragtida ay Afrikaanka ay qabaan marka ay nimankaas soo baxayeen oo meeshii deganaan ka soo baxayeen waxay u haysteen ama ay u arkayeen Afrika qaarad baylaha oo aan la kala lahayn Afrikaankan waxay u arkayeen dad aan waxba yeelan karin oo ku caan baxay sixir iyo isdil iyo isboob iyo inay yihiin barbarig dad ba aragtay nolosha ay u bilownayn aragtidaas ayay ku soo tageen markii Afrika soo gaareen waxyaabo badan bay sameeyeen Afrika oo dhan way tageen dadkii bay daraaseeyeen waxay sameeyeen in goobihii ay soo gaareen ay magacyadii hore inagu aan naqaan Afrikaanku ay la baxeen ay ka bedeleen oo bixiyeen magac hor leh sababtoo ah magac adiga aad u taqaan dhulkaaga aad u taqaan dadkaaga aad u taqaan wabiyadaada buurahaaga iyagu uma aha magac saadarteed waxa arkaysaa iyo u bixiyeen Victoria iyo wax la mid ah marka ay imaadeen dhul aad u qurux badan oo cagaar ah oo aad barwaaqo sooran ah oo hodan ah ayaa dhulkii waxay u bixiyeen magacyo sida xeebihii dahabka Sierra Leone iyo Cameroon iyo waxyaabo la mid ah haddaba marka waxaan soo qaadanaynaa
dadkii dhulmareenka ahaa ee Afrika soo gaaray waxaa ka mid ah Richard Barton, waxaa ka mid ah David Livingstone, waxaa ka mid ah Baker. nimankaas waxay leeyihiin buug kala duwan oo ay Afrika ka hadleen. tusaale ahaan Richard Barton buuggiisa waxaa la dhahaa Fast Food Steps in East Africa. waa ninkii yimid deegaanka Soomaalida, Berbera, Zeylac ilaa ay herar ilaa dhulka Soomaali galbeed ninkii maray weeye, kadibna buuga qoray. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah oo Barton ku sheegayo iyada oo aan la qoodin dawada malaariyada iyo meesha ay ka imaato ayaa wuxuu qoray buuggiisa in ay Soomaalidu aaminsan yihiin in ay qayb ka mid ah kaneecada ay keento malaariyada adduunka lagama aqoonin. haddaan nahay dad tayalo awood leh waan sheegan lahaa inaan anagu asal nahay dadkii sameeyey. xilligaas sanado badan kadib ayaa nin Faransiis ah loo qoray inuu asagu uu keenay oo iktishaafay ama uu ogaaday in ay qayb ka mid ah kaneecado ay keento jirada duumada ay keento. David Livingstone Baker buuggiisa waxaa ka mid ah In the Heart of Africa ama bartamaha Afrika yaa ka mid ah buuga qoray. waxaa ka mid ah David Livingstone buugtiisa waxaa ka mid ah Missionary Travels and Researches in South Africa, asaga Zimbabwe iyo Zambia ilaa ay dhulkaasuu ka shaqaynayay. wuxuu labadana hore kaga duwan yahay, asaga wuxuu awoodda saari jiray faafinta Kristanka iyo awoodda koobaad saari jiray. waxyaabaha ay imaadeen waxaa ka mid ah inay dalkooda suuq u helaan, waxaa ka mid ah inay diinta Kristanka ay faafiyaan, waxaa ka mid ah in ay helaan meelaha ay macdanta ku jirto ama dahab ha ahaado ama diamond ha ahaado ama copper ha ahaado nuxaas ha ahaado ama xitaa shidaal ha ahaado, meel ama dhuxul ha ahaato dhuxushii xilliyada hore tareemada iyo warshaduhu ay ku shaqayn jireen. haddaba waxaan soo qaadanaynaa qormadan yar oo asalkeedu yahay maqaal aan qoray 7 bilood ka hor haddana ay igu dhalisay dhacdooyinka hadda socda. waxaan soo qaadanaynaa dhowr nin oo ah qaar ay ka mid yihiin siyaasiyiin, qaar ay yihiin mufakiriin, qaar ay yihiin falaasifa, qaarna ay yihiin dad qorayaal ah oo dhumuc u ah fikirka iyo aragtida iyo ilbaxnimada reer galbeedka, kuwaas oo buugtooda ku qoray aragtidii ay ka qabeen Afrikaanka. mararka qaar waxa ay aaminsan yihiin si dhaba uma sheegaan, waa ay qariyaan, laakiin markaan dib u fiirino dib u raacno buugtooda ayaan ogaan karnaa waxa ay Afrikaanka aaminsanaayeen. haddaba yaa ugu horeeya dadkaas waxaa ugu horeeya David Hume. David wuxuu dhashay 1711 wuxuu dhintay 1776. David wuxuu ahaa taariikhyahan u dhashay dalka Scotland, markii dambana u xubsiibtay filosof dhaqaalayahan ah oo qoray in ka badan 9 buug oo ay ugu muhiimsanaayeen taariikhda Ingiriiska oo 2 mujallad ahaa. waayana wuxuu ahaan jiray buuga taariikhda Ingiriisku marjic muhiim ah oo loo laabto. buuggiisa labaad waxaa la dhahaa dabeecadda aadanaha oo ku qaadaa dhigay dareenka dadka iyo abuurkiisa, isaga oo ka eegayay dhanka falsafadda ayaa qabay aragtidan Afrikaanku waa ay ka hooseeyaan caddaanka, waa ay yar tahay in la helo dad dub madow oo ilbaxa. ma jiro qof madow hal qofna ha ahaadee oo ku caanbaxay ficil waxtar leh ama aragti fog mufakir. si guud ma laha dad xirfad leh oo wax sameeya, fanka iyo sayniska haba sheegin aad ayay uga fog yihiin. ninka labaad ee aan soo qaadanayno waa Thomas Jefferson. wuxuu dhashay 1743 wuxuu dhintay 1826. wuxuu isaguna ahaa mid ka mid ah odayaashii aasaasay dalka maanta adduunka ugu tunka weyn ee Mareykanka. waxa uu ahaa qoraagii qoray warqadii madax banaanida markii ay shacabka Amerika ka xoroobeen Ingiriiska. mar dambe Thomas waxa uu noqday madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka, isaga oo u ololeyn jiray dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha. sidaa oo ay tahay waxa uu dadka madow ka qabay aragti aad u hooseysa oo ay tan ka mid tahay dadka madow ha ka soo jeedaan jinsi gooni ah ama waqtiga iyo danuhu ha ka dhigaan kuwo ka duwan dadka kale, waa ay ka hooseeyaan maqaam ahaan dadka cad, gaar ahaan dhanka hibada jirka iyo garaadka. ninka saddexaad waa Frederick Hegel oo ay reer galbeedku yaqaanaan nabiga ilbaxnimada iyo falsafada reer galbeedka. waxa uu dhashay 1770 waxa uu dhintay 1831. waxa uu ahaa filosof Jarmal ah laguna tiriyo inuu yahay dadka falsafada tiirasha u qotomiyay, gaar ahaan falsafada ku dhisan dooda, muranka, isqancinta, wada xaajoodka maangalka ah. qof walbana uu aragtidiisa difaaco isaga oo cadeymo iyo wax muuqda keensanaya. falsafada waxaa la dhahaa dialectic. mabaadi'da ugu caansan ee aragtidan ku dhisanna waxaa ka mid ah hanti wadaagga iyo shuuciyadda. farqi ayaana u dhaxeeya labada aragti, inkasta oo dadku hal qura ay moodaan. Hegel oo hormuud u ahaa reer galbeedka aragtidiisana laga dhuxul qaato, waxa uu qabay in Afrika ay tahay meel aan taariikh lahayn, waxaa ku nool dad leh naf aan horumarsanayn oo wali ku hoos jira dabeecadda nature.
afrikaanku ruux ahaan waa qof aan hayin ahayn leelyanayn buubaalna qaba qofka kale soo qaadanayna waa travel roba wuxuu dhashay 1914 waxa uu dhintay 2013 ninka aad iyo aad buu soo dhawaaday waxa uu ahaa taariikhyahan macallinka jaamacadda Oxford waxa uu ku takhasusay taariikhda Britain iyo sooyaalka Jarmalka Naaziga ahaa waa xirti Hitler roba waxa uu leeyahay buug badan oo kaga sheekeynayo isbedeladii xagga fikirka diinta falsafada dhaqaalaha iyo ciidanka malaha ee ku dhacay Yurub qarniyadii 16aad 17aad iyo 18aad waxaana aad u caan baxay buugiisii la magac baxay maalmihii u dambeeyay ee Hitler taariikhyahankan qaatay biladaha badan inta badanna macallinka ahaa waxa uu qabaa ka hor isbiimeyntii Yurub ay ku tageen Afrika kama jirin Afrika wax aan mugdi ahayn mugdiguna boos kuma laha taariikhda sidoo kale waxaan soo qaadanaynaa Anthony Trollope oo dhashay 1815 dhintayna 1982 waxa uu ahaa qoraa caan ah oo u dhashay dalka Ingiriiska waxa uu ku caanbaxay qoridda sheekafaneedka walow uu markii dambe qoray buug uu ku gorfeynayo arrimaha bulshada sida Bertie Orley sida aan hadda u noolahay iyo buug kale oo ka mid yahay ma awoodaa inaad cafido iyada inkastoo Anthony lagu tirin jiray dadkii ugu maanka furnaa ee xilligiisii noolaa haddana waxa uu Afrikaanka ka aaminsanaa in dadka madoow weligood xagga ilbaxnimada waxa ay uga daydaan dadka cad sida uu daanyeerku dadka ugu daydo hal talaabana ma qaadi karaan iyaga oo aan ku tiirsanayn cadaanka Afrikaanku waxa uu ahaa howlgab aysan ku jirin han adduun iyo higsasho hoggaan sare waxa uu ahaa qof dareen badan caadifad badan wax yarna ku qanca Afrikaanku waa qof liida naftiisa gabi ahaanba waxa uu naftiisa gaajaysiin karaa bil si uu hal maalin u noqdo qof cad marka aad fiiriso aragtidaas ay ka qabeen siyaasiyiinta iyo mufakkiriinta iyo falaasifada iyo aqliyadii ugu horeeyay reer Yurub ay ka qabeen dadka Afrikaanka waxaad garanaysaa in dhaqanka liidida iyo gumaysiga iyo dilka iyo ku tagrifalka dadka madoow ee Afrikaanku aysan ahayn dhacdooyin shakhsi ay geystaan bal ay tahay aragti ay qabaan dhammaan cadaanku lafdhabarna u ah noloshooda iyo ilbaxnimadooda ku dhisan in dadka la boobo la dilo la dhaco la yaso xaqoodana la qaato waxa xusid mudan in taariikhda iyo qoraalada iyo oraahda shantaanin aan ka soo xigtay buugga Writers in Politics ee uu qoray qoraaga mufakkirka suugaanyahanka Kenyaanka ee caanka ah Ngugi wa Thiong'o oo ah nin u hiiliya Afrikaanimada meesha dad badan oo qorayaalo Afrikaan ah ay weli ku mamman yihiin oo daba socdaan xardhida iyo qurxinta iyo cudur u raadinta gumaadkii iyo ilbaxnimada reer galbeedka ee gumaysiga ku dhisan asaga wuxuu qalinkiisa u qaatay in uu dhaqanka Afrikaanka ee quruxda badan oo adduunka u gudbiyo aad iyo aad baad u maasantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh